maanta halkan waxa dood baa dhex martay wasiirka iyo sheekooyin dheer wasiirku waxa uu uga waramay si uu maartay xog u siiyo maaha si uu uga codsado inuu heesada ma soo qaado oo ku amaanayo sida ay dadka qaar sameeyaan wasaaradda iyo maartay iyo wasiirada laakiin wuxuu sameynayay inuu maartay xog dheeraad ah siiyo si uu bari ka maalin halaburkiisa ugu maartay ugu dhiso maartay isla markaana uu maartay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ku dhiiri galiyo maartay halaburka maartay waxbarashada iyo dhaqanka wanaagsan maadaama aanu nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan maartay mas'uuliyadda naga saaran inaan maartay ardayda iyo maartay dhalinyarada in lagu dhiiri galiyo inay maartay caadistaan dhaqankeeni iyo maartay sidii ay bulshadeenu soo nooleed halaburku ka mid yahay Soomaalida waxa lagu yaqaan haday tahay xagga ganacsiga haday tahay xagga fanka haday tahay xagga maartay sheekooyinka haday tahay xagga riwaayadaha haday tahay xagga heesaha dad maartay aad ugu wanaagsan xagga maartay halaburnimadaas waa u hambalyeynaa waxaan filayaa inay maanta noqon doonto inaanay noqon doonin maalintii ugu dambeysay laakiin ay noqoto maalintii horeysay ee maartay dhalinyartani ay iyo wasaaradda xiriirka dhex maray wasiir Goodaxna aad baan ugu mahadcelinayaa inuu abuuro maartay isku xidhkaasi wasaaradda iyo maartay dhalinyarada wasiirada maanta هذه مثلا وزير جودح عبد الله جودح برة شرم بوي نظامية تيم دردر تيم بؤالة بسم الله الرحمن الرحيم داود يال وحن جوجنا حفيزك وزير كينا وحبرشة الصومالية عبد الله جودح برة فنان كينا شرم بوي أجاسمياشة مسؤوليته وزارة وحبرشة وهذه سلام دمانتنا ووزيرك ووري عزومات gaar ah u sameeyay fanaanka Sharma Boy oo waayahan dambe dhalinyarada madadaalinayay wasiir ku soo dhawow halkan waxa waaye waa janalada Durdur Media iyo Bu'aale Media xafiiska joogna sharaf gaar ah noo tahay wasiir marka loo dadka waxa waxay niid gelinayaan qof aan loo tagi karin qof xirxiran qof marka uu tagayso oo dad badan in loo soo maro sababaysa لكن وقف رحسنا سيدا ما أنتو نوسو دويسي شرفت يقدرين تأنو سميسي أدي وحا ورطا مركو الرئيسو أنك ما هاد علنا أجيب دا و حاليا ير يرى أرتيستها الصومالية صوب بحايو وأجيبي مركان فرين وفري هنا نقولنا أنا مركز مثل هاي وزارة وحبرشة وجددا aan sharma u marti qaaday waxay ahayd markuu horeyso inaan horta barto nin dhalinyaro oo artista oo wanaagsan oo hal abuur leh oo saameyn badan ku leh bulshada Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada inuu yahay horta inaan dadka ka barto aan isbarano marka labaad in aan uga hiiliyo muxuu ahaa warka suuqa loo geliyay oo ah inuu sabab u ahaa imtixaanaadkii dhacay sharma mas'uulka ahaa taas fikir xun buu ahaa fiican ma ahayn waxayna ahayd mid runtii dhaawici karto qof dhalinyaro oo yani ma taqaanaa sida Sharma Boy oo kale in muxuu ahaa runtii la dhaawaco mustaqbalkiisa oo la yiraahdo imtixaankii la dhacay asaas sabab ah dad siyaasiyiin ah waxa sameeyeen muxuu ahaa marka taasna inaan uga hiiliyo oo aan sheego inuusan waxaas uusan saameyn ku lahayn balse dhinaca kale laga yaabo inuu saameyn ku yeesho muxuu ahaa ardayga inuu niyadiisa wanaagsanaado oo mataqaanaa uu hagaago taasna qasdiga ugu weyn ah qasdiga kale waxa weeye in asiga laftirkiisa aan ku baraarujino in muxuu ahaa saameyntiisa xoog leh wadanka uga faa'iideeyo ubadka dhalinyarada yar uga faa'iideeyo in ay waxbarashada ahmiyad weyn leedahay oo ku baraarujiyo sidoo asigaba uu arday wanaagsan uu soo ahaa mataqaanaa amaba hadda uu yahay in muxuu ahaa oo inta kalena
uu saameyn ku yeesho in iskuulaadkii ay ku mintidaan waxbarashada ku mintidaan intaana inaan muxuu ahaa asigana aan ku baraarujino ujeedada intaas ahayd mar kale waxaan ka mahad celinayaa muxuu ahaa sida wanaagsan uu soo ajiibay inaan kulanno aadan uga mahad celinaya adigana sidoo kale barasho wanaagsan aadan kaaga mahad celinaya inaan muxuu ahaa bahda sugaanta iyo samayso dhinacay wasaaradda ka mid yihiin sidaad la socotid muxuu ahaa hiddaha iyo dhaqanka muxuu ahaa annaga wakiil uga ah wadanka marka bah yar oo gees naga jirto oo mararka qaarkood ku dhex qaldamo fanka fanaaniinta heesidu iyo fikir curintu waa kala laba qaanad ay ku kala jiraan marka in bahdii isku soo maaxday aan nahayne aadaan ugu faraxsanahay sharma barasho wanaagsan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sharafeena tahay maanta waxaa la joognaa waxaa waaye waxaan socono aan raacno maanta waxaa la joognaa waxaa waaye xaqiiqatan wasiirka waxbarashada aan joognaa kulley farxada ay tahay aniga gaar ah oo khaasatan ah inuu ii yeero wasiirka waxbarashada maanta aan dad taagnahay aniga asxaabteedaba kulley dhammaan faniska Sharma Boy haddii la dhaho asi laftirkiisa fanis uu leeyahay anoo dhan fanis aan leenahay taageero iyo inta waa leeyahay dhammaan waxaan leenahay haddii hala ogaada waxaa waaye ani iyo goodax bari dad saaxiiba inaan nahay marka laga soo tago aad waxaa waaye haddee mas-uuliyiin kalena meesha way joogaan kuma dheeraanahay hadalka waan ka baxaa wasalaamu calaykum farxada ay tahay marka ugu horeyso wasiirka iyo hadde hadallo badan oo la sheegay in halkan lagu soo daboolo dhalinyaro badan ay arkaan farxadda iyo bogaadinta waxay tahay wasiir ma ahan markii ugu horeysay oo wasiir iyo fanaan ay kulmaan laakiin waa wasiirkii ugu horeeyay si qalbi furan intuu uga cofanaan dhaho hadda ii imo xafiiskiisana ku qaabil hambalyaa ku leenahay shaqada iyo dhalinyarada iyo waxbarashada iyo sidaa u haysana waa kaaga mahad celinayna waxaan siinayaa hambalyo agaasima waa u hambalyaynayaa wasiirkayga iyo Sharma Boy inay maanta maaragtay halkan ku kulmaan caadiyan waxaanu samaynaa wasaarad ahaan inaanu maaragtay dhiirigelino daayarta hal abuur kale waa waxyaalahaanu ka dhaxalnay maaragtay hogaaminta wasiirka si loo helo maaragtay curiyayaal iyo dad maaragtay waxbarashada ku dhiirigeliya maaragtay ardayda